bismillahi raxmaan raxiim dadkii sunnaha ahaa ama wadaad ha ahaado ama caruur ha ahaado ama cirowla ha ahaado ama dumar ha ahaado ama rag ha ahaado ama siyaasi ha noqdo ama ha noqdo shicib waxa ay isku wada raaceen kulligood waxay isku raaceen inay gumaysiga aqbalaan waxa ay isku raaceen inay yuhuudda iyo nasaarada u shaqeeyaan waxa ay weli isu haystaan in ay muxuu ahayey sunno yihiin ayay isu haystaan jimcihii waxaan ku tukaday masaajid soomaalidu ay ugu badan tahay khudbadda carabi iyo af soomaali lagu jeediyo nin weyn ayaa jeedinayay khudbadda wuxuu ka sheekeynayay akhlaaqda maado fiican bay ahayd khudbad fiican oo u baahan bay ahayd markuu khudbadda dhammaystay wuxuu ku daray khudbadda in lacag loo ururinayo masaajid kale oo alnuur la yidhaahdo oo u badan tahay soomaalidu oo ah kii ugu horreeyey soomaalidu iibsato haddana lacag baa loo ururinaya iminka dhowr iyo toban sano oo malaa iminka lacag baa loo ururinaya maalin xagga saraa xumaatay maalin xaggana lasii kordhinaya si fiican buu u sheegay lacagtaa kala qayb qaabto markii kadinka ay la istaageen baaldiyo lacagta lagu ururinayo iyo kaarhkii lacagta la marinayey mashiinkii kaarhka la marinayey ayaan ku uri sheekh khudbadaada way wanaagsaneed laakiin cadaaladda ka hadal masaajid kale oo la dhiso oo cadaaladda aan lagaga hadlayn macno ma laha nin kale oo isna dhowr iyo kontona haddaanu 60 ba ahayn oo soomaaliya oo ku xigay oo maqlay waxaan ka hadlayey ayaa qoslay dhaqdhaqdhaqdhaq waxaan ku uri sheekh khudbadaada way wanaagsanayd cadaaladda ka hadal waxaa lagu jiraa waqti kumaad dhaqdhaqdhaqdhaq dhoola intuu dhowla cadeeyey ayuu qosl gariiri marka waa aabbo siday u badantahay waa aabbo ninka odaygii xaas buu leeyahay haddana wuxuu ku qoslayaa waqtiga kumaadka way baqanayaan way wada baqanayaan wadaadadii way baqanayaan dadkii kale kuwaas waxaabay u goyeenba adduunka suudka xidhe kuwaas wadaadkii wuu baqanayaa gabadha way baqanaysaa deedna waxay u gudbiyeen caruurtoodii alan ku dhalatay shalay toole fiinland bishii 5teedii waxaa la xiday meelo dhan oo dowladda ayay arday jaamacadda ka dhigatay jaamacadda alta la yidhaahdaa ay xidheen ay fadhiisteen askartu ay timisa uga qaado waxaa ku dhashay 15,000 oo soomaaliya haddaanay 20,000 ba ahayn soomaaliya ku dhalatay iminka dhowr iyo 30 40 cagaagaynaya oo soomaaliya xabad ka yimi ma jirto waayo hooyadoodii aabahood baan u sheegin qalbigooda baqdin ka geliyey wixii ugu badnaa waxay ahaayeen arday yaryar oo waxbaratay oo og kumaadka ka dhacaya oo ka dhiiriyey oo waxay keliya haysteen naftoodii iyo jidhkoodii bartamaha soo dhigay waata ugu fiican 3 cisho 4 cisho la xidho 24 saacadood la soo daanaya haddana laakiin hadhow tula magac bay u noqonaysaa caruurtaas waxay u noqonaysaa markay waaweynaadaan magac waayo cadaaladda ayay iminka dowladda xidhaysa hadhow toole dowladdaasi waxay u dhisaysaa taalooyin dadkaa maanta la xidhayo 50 sano ka bacdi taalooyin baa loo dhisay waxaan ka socdaa meel inoo fayow ma jirto carabta joogtaa waa dhowr iyo 40 haddaanay 50 gaadhahayn cid ka timaadaa waa yarta in falastiiniyiinoo waddanka ku dhalatay oo dan iyaga ku qasabtay dan baaba ku qasabtay waa waddankoodi ma yimaadeen kuwaasina meel u fayow ma jirto dadka sunnaha yidhi waanu nahay caruurtoodii ciroolahoodii waa dad wada baqadin ku jirto ilaahayna fulayga qur-aanku ku sheegay cadaabbaa ayaa mudantiin buu yidhi wadaadadu waxay leeyihiin haddaan ka hadalla cadaaladda waana la qabsanaya oo haddii lagu qabsado maxaa ka fiicanba iyo akhraba magac baad ku helaysaa waayo waa fulay weligii maa loo sheegin sida loogu istaago cadaaladda qur-aanka wuu akhriya laakiin muu fahmin jimco kasta wuu ku celceliya laakiin muu fahmin
وكل عليا لكنكم ما رقم هديات وذات كارنتا وشيكتو هدات ترى الدولة ده صنعها اسكو شيء وحفظا ما قبطها مد باسو بودي أما قبر باسو بودي أو دفاعيسة تصالوا خلي تركيا وشالي مستراد وحو أدري باكستان دون إذا ماضي تركيا هوبكي ودن بيه أيو أدري هندية وحا كلا أي شيكتي إن diyaaradahan iyagu iswada ee dagaalka uu keenay uu dafray waa run laakiin hindiyan labada aaminayaan uu keenay Pakistan dadkii waxay ku leeyihiin waxba ma qaban karo Turkigu haddana dawladihii wax qabanaya Yemen oo badii casayd iyo badii Carabta daraa toolana ku soo rogtay madaarka magaalada madaxdana Yuhuuddu dhisteen inaan diyaarad iman kartaa jirin maadaama qasa wax ka dhacaya garaacday daraato la garaacday shalay ma ay daraad garaacday Turkiga dhaleecaynaya Yemanta waayo gaalada oranaysa sunnaha muxuu ay dadka muslimiinta ha u arkaan inay Yemen wax u sameeyay adigu ku dhawaaq Turkiga waxay u haysan Soomaalidu inuu yahay wadan xor ah Turkiga uma haystaan inuu Yuhuudda uu la jiro وقصة كسور جيدا وما هيستان إلا ما أنت كمان رادعين كرتيد ولا قول مرمية غير كيدا ولا الكيبا بكمدا أو تركيا أما أنت يعني خيالي وحيس كل عارفينها هي حقيقة دي قفكوا بني آدم كمركو وحقيقة دي كتاكو خيالي كل عارفيه إلهي بقرانك تدك خيال كمركا أي كديك تان طبيعة حد محوها أي رمتا أي إلا تركيا وحو تغال وجرا sidoo Yuhuudda u badbaadin lahaa Syria uu burburiyay Yuhuudda tirti marka Masar 5 kilomitir bay u jirtaa qasa magaalada Rafah 5 kilomitir ay jirtaa carruurtii waxay ku gaajoonayaan gaajo u dhinteen carruurtii Falastiiniinta gaajo u dhinteen waxa yaani daacun baa dilaacay raashin la'aan iyo dawo la'aan iyo biyo la'aan baa ka dilaacday qasa 5 kilomitir way daawanayaan masaaridii halkaas ka daawanay waxa ay sii sheegaan waxa Mareykanka iyo Yurubiyaanku ay sheegaan idaacadahooda ka sheegaan ay sii sheegaan Imaaraadku waxa weeye Mareykan yarba sidoo uga soo horjeedo Falastiiniyiinta kale arag Sacuudiga sidoo kale Kuwait sidoo kale Qatar sidoo kale Qatar meesha Yemen laga garaacaya waa Qatar haddana dadku waxay oranayaan Qatar way dhaantaa kuwa kale waxaasoo dhan waa sunne iyaga yiri sunnanahay marka waxaynu ku qaadanaa xukunka waxay yiraahdeen qofku wuxuu yiraahdo inuu qulubtooda ma naqaana ayaan ku xukumaynaa sunnihii quraankii iyo xadiiskii marka aynu eegno dadka ficilkoodii aynu eegno xitaa hooyada Finland joogta ama Ingiriiska joogta Soomaaliyeed ama Carabta ama Turkida waa isku wada dabeecad kulli waxa ay u gargaaraan gumaysiga maxaa la qaban karaa ducuun baa loo sheegi karaa hadhowna waxay kuonaysaa maasha Allah inankaygu waa dhakhtar maasha Allah inantaydu waxa weeye garsoore maasha Allah halkanay ka soo baxday halkan uu ka soo baxay waa waxa adduunka waa waxa gaaladu u sheegtay adduunka isku qiimeeyaan guurkoodii baa ku burburay qoysaskoodii baa ku burburay 50% qoysaskoodu way burbureen dadka sunnaha ee Yurub jooga 50% wada joogaana waxay ku wada joogaan dhibaato iyo dul iyo nin xaaskiisii kolba ka cararaya iyo gabar cabanayso le ninkiiba iga tagay mid kale iga tagay 2 ciyaal oo kala kaana 3 ciyaal oo kala kaana 4 ciyaal oo kala kaana isku hay kaynta waayo nin laan ma joogi karo oo dumarkii hore marka mid ku xumaado guryahooda iska fadhiisay maya anigu social media anigu jacaylkan aaminsanahay waayahay ka wad ma oga jacaylkay aaminsantay inuu yahay ka gurigeeda burburiyay ma oga kolba naagtu ku boodayo kolba ina yaro reer dhalay been soo sheegayo kii dhalay inantaasna ma oga inuu ninkani naag hore soo xumeeyay oo ka yimi ma oga wuxuu leeyahay dhaafto ninun baa gacanta loo geliyay ama la guursado ama xabaal ama naag haday marqaan gaadho inay guursato fiican
ayuu iska odhanaya hadhowna marka ciyaal soo dhashay guriga uu soo hoosiinayso way wada burbureen waayo waxay u burbureen Bakistaanta iyo Hindida iyo Bangladeeshka Ingiriiska jooga waxa ay ka sheekayaan maasha Allah inantayda waa dhakhtar maasha Allah inankayga waxa weeye garsoore maasha Allah intaasoo lacag aan haysanaa gaarigii ugu dambeeyay Lamborghini Ferrari baan wadanaa ma oga dhibaataday ku jiraan waa wada xanuunsanayaan boqolkiiba 80 xanuun baa haya dadka muxuu Bakistaanta iyo Bangladesh iyo Ingiriiska jooga boqolkiiba 70 carruurtooda waxa weeye dambiilaya waayo markaad ka tagto diinta Ilaahay aad waliba aad ku adkaysato kibirka Ilaahay ma jecel dadka kibira annagoo kaliya sunnaho kaliya tii xaq ahay haddana wuxuu kugu faanayaa waa guriga hadda maanta gabadh shukaansato Soomaaliyada ama Bakistaaniyada oo Ingiriiska joogto waxay ku sheegaysaa gaariga haysta shaqada haysta guriga ku jirto waxa allaali waxay ku sheegaysaa ma jirto diinteeda quraankeeda ku dhaqankeeda cilmi doonisteeda waxbarashadeeda waxay ku sheegaysaa ma jirto waayo dhaqankii waxay qaateen gumaystaha ee la isugu faanayay waxaasan haysta waa dad adduunyo lacag yar bay siisteen muxuu ahaayay diintii imikana waa taasoo gumaysigii ay caadi u aqbaleen marka waxaan leeyahay dadka sunaha isku sheego idinkama mid yihiin Ilaahay igama mid digo waayo caajis iyo adduun iyo diinta islaamka la siisto iyo gumaysi la aqbalo ayaa dhaqan u yeelatay Ilaahay waxaan ka magan galay inaan idinka mid noqdo masaajidka oo sunno oo dambe oo aan ku tukanaya maba jirto gurigayga ku tukanaya waayo waxaan aaminsanahay wadadii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo tii Ilaahay uu yiri Nabi Maxamed ku tayda taasaan aaminsanahay cadaalada laga hadlo hadii lagu xiro hadii lagu dilo oo cadaalad ka hadasho adduunka waqti yar baa la joogaa wax ka fiican ma jirto dadka dhalinyarada Soomaaliyeed u baahan cilmi waxaan oran lahaa Turkiga aaminina dadka Turkiga kama hadlayo dawladda Turkiga aaminina waa mid kaliya ay oran nin muslim oo sulx dhaha aaminin ilaa iyo aad ficilkiisa iyo hadalkiisa inay isu tagaan noqdaan markasta iska ilaali waayo qofka suudka xidhay waa qof fikirkiisii bedelay waxaad kaloo iska ilaalisaa carabta iska ilaali carabta kuwa khaliijka la yiraahdo iska ilaaliya oo qofka yar ee dhalinyarada Soomaaliya ee doonaya inuu adduunka ogaado iska jir Turkiga iska jir Soomaaliya haddaad tiraahdo Turkiga waa saxaabtayda qamandi bay nagula saaxiibeen 2011 iska jir waa sun